horta waa ilaahay fadligii maalinkii sahalka la furay 2008kii inaan daafurkeedii joogo maanta oo aan waafi iyo mastercard isku furayna aan joogana waa alxamdulillah waxaan leeyahay mobilkayga halkaasaan ka soo kacayo dadka safarka badan labaan hay marka awal waxay ahayd mastibiinaan car master wadano si aan taxiga airportka nolosha ugu hooseyso qofku marka uu basic life-kiisa uu ku qaadanayo laakiin maanta aan haysano waafi waxay ganacsatada naga hirgelinaysaa oo mastercard-ka lagu qofku lacagtiisa saarka iyo waafi ku shubto only waa inuu heshtaa inuu helaa kaliya waafi marka nolol maalmeedka caadiga dadka transportka iyo nolosha kale ee caadiga u socda taas horta way naga soo anfacaysaa waa soo dhaweynaynaa haddaanu niraahno sida kale golis saakay hal daqiiqo ganacsatada afkeeda markaan ku hadlo inuu nadho madaxweynaha dalka ganacsiyadiina maanta albaabada xir yeenayna tiraahdo golis hal daqiiqo oo kamid ah signalkeedu istaago waxaan u maleynayaa waxa nooga baawar badan in golis signalkeedu hal daqiiqo istaago sababtoo ah khasaarada ugu badan baa ka dhacaysa waa meesha kaliya ee ganacsatada sintay waa weelka kaliya ee lacagtii Puntland iyo lacagtii Soomaaliya ay ku dhacday marka waxaan leenahay qalbiyadii golis waa degtay ganacsato iyo cid waliba haddana afkeeda ku hadlo qulubtii dadka mashiinka ilaa bilaadanka marka ilaahay kaska uu abuuray kasokow waxay dadku ku noolaadaan oo nolosha maalinlaha qabsatay laakiin waxaan leenahay maadaama aanu ganacsatanahay aanu dareemayno dadkii waxaystay in qurbaha u socdaan sidii dadka loo deegaameyn lahaa oo dadka waxbarasho iyo baysigoodii saxda ah ay heli lahaayeen inaad taas oo daraska saartaan taas waa ta labaad aan rabay inaan jaaniska kaga faa'iideysto oo qodobka labaadana golis maxay ugu tala gashay dadka mushaharkoodu $400 yahay sida caalamku inuu qofkii u noolaado inuu helo mobil iyo nolol joogto ah in sababtaas marka waxay u baahan tahay qofkii inuu dareemo comfortable inuu 400 mushahar qaato inuu 300 mushahar qaato iyo inuu 5,000 mushaharka qofka qaadanaya sidee labadaas loo simi karaa oo adeegyada qaybtooda ay uga sinaan karaan golis marka waxaan leenahay maadaama maanta madaxdeedii joogto dadka qaybaheeda kalena aan rabay in afkooda uga hadlo shaqaaluhu ma wada sinaan karee waa inaad keentaan adeegyada sida shirkadaha caalamka bardo way wada joogtaan in ay helaan dadku mobillo installment lacagta looga qaadayo xarumihii loo furo hadda ka hor maalin baan Dubai waxaan mool tagay waxaan ku yiri mobile iga iibiye waxa laga mobilkan hadaan installment ku bixinayn ma ka iibinayno si waxaan dareemay in aniga shaqo la diray laakiin si waxaan u dareemay dadkoodii inay haysanayaan oo la kasbanayo marka taas waxaan leeyahay dadka in loo dhuglaado waxna lagu cesho waxaan hadalkayga ku soo gabagabeynayaa golis waxay bartay ganacsatada iyo dadka inaan wax profit aysan saarin ay balse dadkii ay u nugulaatay oo ay bartay service bal qiimihiisu hadduu jiro charge oo aad u jaban yahay sababta $5 baan waxa laga yaabaa bilan inaan ku hadalno iska badaa koolkii 79 ahaa inaan ku hadli karno oo saari karno marka anyway waxaan leeyahay hadalka soo gabagabeynaya golis waa bulshada halbeegeeda kaliyaha bilaadanku wuxuu ku nool yahay waa wadnaha iyo kaliyaha halkaasay marayaan annaguna waxaan leenahay ganacsato noo soo dhawaaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh